waxaa si rasmiya garoonka kubadda cagta Alamsi Stadium ee magaalada Burco si rasmiya loogu daafuray galabta wareegga Togdheer Cup oo muddooyinkii u dambeeyay dib u dhac la xiriira dhinaca farsamada ay soo kala dhex galeen kooxihii ciyaarayay iyo wasaaradda ciyaaraha waxaana munaasabadda furitaanka wareeggan ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Somaliland gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi mas'uuliyiintan kala duwan ayaa goobta furitaanka hadalladan ka jeediyay maanta waxa weeyaan maalin lagu taariikha waa maalin qiimeey qayan ugu leh gobolka Togdheer oo maanta ah huriyada gobolka Togdheer 22 naadi oo heerka koowaad oo aan kala saarayno oo marka Abdullaahi ka dhigo aan u kala saarnay darajada ay ahaayeen A iyo B magaalada Burco magaalada Burco oo si fiican oo habsamiya maanta u furmaya halka waxa taagan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer waxaan halkan ku furaynaa oo dib u furaynaa tartankii halka yara galay ee kooxaha heerka koowaad runtii wasaaradda ciyaaruhu sida la wada socoteen dhawaan waxay koob ka waday dhammaan gobolada dalka oo dhan gobolka Togdheer wuxuu ka mid yahay goboladii aan u furnay koobka oo aan ugu talagalay naadiyada heerka koowaad oo muddo aan loo furin qaranka guud ahaanba aan loo furin koob inaanu dib ugu furno koob si aan ugu soo dhisno xirfadoodii kubadda oo runtii ay muddo gaabyara galay si ay ugu diyaar garoobaan koobka gobolada insha Allah waan rajaynaynaa dhawaan qabanno tartankii ama horyaalkii gobolka Togdheer oo aanu kala reebayno kooxaha heerka koowaad insha Allah taala waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo ayaan rajaynayaa 22 kooxood ee Togdheer u soo saftay heerka koowaad insha Allah taala wada furanayna maanta aad iyo aad baa mahadsantiin Cabdiqani Baafo telefishinka caalamiga ah ee RTN magaalada Burco.